nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahay horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino waryaada ree kalamaan horta waa warramaane wakhti dheer jabhadin wajahaysay dagaalo waxay doonahayeen iyo dantii waayey miya taan jabhad ka soo marnay ilaahayow jabhad dambe ha noo celinin aniga weyga su'aale warkan reer kalamaan waralla yaa u xil saaray war reer kalamaan hoobeetin qoladun waran alla kooyna gaashan diyaarsaneen horaan waxaa loo yidhi aweesa afkeeda ulweyna lagu dhiftaa war mahmaadas mataqaanaa wala weynayey abeesa kucuntay afka uma roona weeyaan waxaan idin idhi abbaarteeda saxdaa cid kastoo arki weyda waa ayaandaradeeda war akhbaarta saxdaa waa la hayaa madaxweynuhu xalay ma seexan haa ku dhaca macbuudkee taleefon buu kula hadlay afarta baynajaho uhura kenyatuu ka soo bilaabay kadib maamul goboleedyada dhan buu wacay waxa uu yidhi gobashii weli waa fidsan tahay ijiid aan kujiida kuma juri karnee isku kaanya keena buu yidhaahday horta abuuro kenyaati ma maamul goboleedyadow ka mid ahay isagu warniyo madaxweynuhu muuse biixi miyuu la hadlay war anugu waxaan qabaa nimanyo maadaama sacuudigu arigii naga iibsan diidey 10 kun oo orgi inaan turkiga u rarro oo aan hilibka barro saan mustaqbalka uga iibsanno arigan war sacuudigaad hilibka kaga dafadaasa jamaal khashoogi langililea hilibya inyaala hilib kale ma koofadaayan waradar adhiga somalilan imaaraadka iibsada horaan waxaa loo yidhi bec baro ama been baro war ari haddii la gadan diido wax kalaan gadanaynaa sagaaradiian qadar u beecgayne war nimiya walkalantiha ka bateen gooye waa sagaaradii siinkulubahsada waaya faragalateen ma aha war guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi waraaqda madaxweynaha ka soo baxday kuma qancaynu yidhi dadaalka golaha aqalka sare wado ayayna dhabar jabinaysaa waxaadna moodaa gacan saddexaad inay qortay ebedkay qof 3 gacmood lama arag madaxweynaha jubbalandna wuxuu ku eedeeyey guddoomiyuhu inuu wada hadalka caqabad ku yahay aryadhaha warba ma haysiina shalay waxaa la yidhi ciidamaa isku dhacay jenaraal sheegowna waxaa la yidhi berigow beledka soo galo xabada faniinaa bilaabahaya askariyaa dhimahaya ama islaan shacabahaa dhimahaysa ama gabar iskool ka timid ayaa lagu dilaa mahay joogto mugga waxaan maqli jira niman ka ray jiray rabee ambii ruqseey ambiiga reeb mugga jenaraal sheegow amba dadka ha laga dhiciyo amba janannimada xanyuub ha laga siiyo war meesha jeneraallada xilka looga qaaday waa puntland saraakiishii ciidamadoo dhan waxay yidhaahdeen shirka cabdiweligaas meeshaan ku qabsaday iyo warka ka soo baxay oo qarindumisnimada ma aqbalayno kadibna cabdiweli xilalkiibuu ka qaaday gebigood war jannanadaada sheegaasa abdiweli derajada ma ka qaada koro shaga fariisasa ka suubii koro bas war jenaraalkii janamada puntland ugu sarreeyey markii darajadiisii lagu qabsaday asaguna kursigii madaxweynenimadu ku qabsaday oo madaxweynu isku soo sharax war ciidankii jubbaland talaafkaas saameeyeen u malaynayaa xabaddaana ka dhex faniintay marka iyagana janamada ma hogaaminayey warnamiyaw saraakiilla galan hoosada iyo dhan wada deertiya kaali saraakiishii koonfur galbeedna gaara godoodii allaari aw shariif haddii madawiinayaasha geedlang nagadi hamiigna ma ku weelano maalangna ma ku weelano godod fiyaareen godod faagay ka doorteen saraakiilnimadood urayada wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya magaalada Baydhabo ka hadlay wuxuu yiri diyaaradaan u soo raacnay musharaxa liiran lafta gareenan taageerayna dawladdaana wadata marka waa la yaabay ma wasiirka waalan ma dawladda waalan ma saana waalan cidii la taageeray waa la qari jiray annaga wadana barqadii isla taagay cadaaladda intaan leeyahay xagee ka timid war aan hal wal mooshiidi weel walaay ka jiro shiifay oo la ari walaayo ka jiri hashiifan war wasiirka gaashaandhigga annaga wadana ma dhihine ununa wadane ayuu yiraahday nimayahow dawladdu inay wax wadato qalad maaha laakiin lafta gareen iyo baasta inay wadato taasaan la yaabanahay wax karoon maa la waaye war waxaan idin idhi qaraxii sanadka hor ka dhacay naasaha hablood maantoo kale nimankii loo qabtay oo maxkamadda xukuntay weli alla sharciga lagu fulay waa joogaa war aawi cadaaladii madaxweynaha maxkamadda maandhow u sheegay war nimanka maxaa loo haystaa ma dadkay laayeen inay dhalaana laga sugayaa waraadhaha dadku waa dhinteene adigu waxa nool ha lagu dara miyaad leediin waradeero dhowdhowdunbaa meeshan ka haysaane somalilan xafiis weyn bay Kenya ka furatay war xafiis cusmajaadka lagu gadaa waradeerna dhex boodine waa safaarad dadban ma garanaysidii safaarad toosaan xabad uga dheef weyna Kenya waxaa la yiri banaankiisa maro maradiisa bood ma taawehayso war banaankiisa mare
maradiisa geedma qabto weye balaayaysan qayeertalu ku tuurtee waradeena somalilan war kama haysaane qalab bay keentay teleefanada lagu dhegaysto markaa xantiinna waan la soconaynaa maanta wixii ka dambeeya horaa loo yidhi fulayxantii ma mooga war reer hamar may baaraana luguxanta lagu xasuustaa ka weyn bortubaakada taabuugga la yidhaahda ee hindiya iyo kenya laga keeno wasiir maarey waxa uu yidhahdee kansar ayaa laga qaadaa dad badan oo uu ku dhacayna waa aragnay ciddii dambe oo keenta ayadaa tunka laga tumaayuu yidhi aryaa taabuug ciidamadaa dhisan jireen shimaytu baa ka naqatay war maareeye wasiirka caafimaadka ee madaxa bannaan miya war adeer wasiir maareeye maanta mafiiquu wato xashiishku guray war hadduu xashiishba gurayey muxuu tubaaka ku diidayaa war wallan weeye fahmi maysaane waa guddaafadda aryaa guddaafo ina aayay ahayd waaba maqli jirayey war ayaantan ganacsatadii madaxay iskula jiraan iyo qoorta iyo luqunta waxay yidhaahdeen guddoomiyaha ganacsada ninka noo ah hadda ganacsadaba maahan taan lacagtanadu akoon ku shubtaa war guddoomiyuhu ma laba shaquu isku qaban karaa inuu guddoomiye noqdo iyo inuu ganacsado horta ganacsi waa iska daba wareeg beesana waa asturasho horaan waxaa loo yidhi buxuu bilaash maahee beesaanla bilbilaa warnimaya horta anigu waan yaabaye soomaaliya meeqa kontakti group ayaa jirto war wiilkii fogaan eeg baa saaka su'aal ii weydiiyey wuxuu yidhi adeer ciidamadii dawladda federaalka oo inay ilay qabtay oo xiray miyaa dawladdeenna federaalka ka amar qaata mayaan idhi maxaa jira hadda waayahay dawladda haddaysan maamul goboleedyada xirxirayn maa la heshiisuu yidhi adeer war dogonsina lankunkan madawiinihii aykin sheegi warkaas dad haddausan kale adkaa haynin inuu heshiiyaa raysa warnimayo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa nabad nolol ku soo biiray waxa uu yidhaahday waa markii ugu horraysay ee ay etoobiya yeelato golo wasiiro oo kala bar dumar yihiin dan badana af soomaaligana goormuu barta war anikiin sheega ma eeray ahuun nabad nolol infalligaa leh in aan dumar badan infalligaa leh waari waryaa aryaa ununka waydin falaana ma dhihi kartidoo waa ka shallaayhayaa billah calaykum khuduu maslaxatakum qulub haydhihin qulub haydhihin qarastaa ku barkatee